xirfadda kaliya weli suuqa ku dambayso aan suuqa ka bixin waxa weeyaan video editing, hagaajinta ama naqshadeynta muuqaalada. waxaa jirta dhalinyaro badan oo jecel inay bartaan hagaajinta muuqaalada, naqshadeynta, si loo naqshaday muuqaalada, si loo edit gareeyo. haddaba su'aasha ugu horeysa qofku isweydiina waxay tahay xageen ka barta, xageen ka bilaaba? haddii aad youtube-ka gashayd aad ku qortid video editing as a career, waxaad arkaysaa waxa ku soo baxaya muuqaalo badan ayaa halkan kaaga soo baxayaan. Still haddii aad gashid waxaa jiraan website-yo free ah sida Coursera, Udemy, dhammaan website-yadaas haddii aad gashid waxaad ka helaysaa courses free ah oo si fudud aad ku baran kartaa. ugu horeysa waxa lagaaga baahan yahay haddii aad ku haminayso inaad baratid video editing-ka, kaliya barasho ma ahan in aad rajo ka leedahay inaad ka dhigatid career ama shaqo aad lacag ka samaysid ama nolol maalmeedkaaga aad ka heshid. waxaa lagama maarmaan ah inaad baratid video editing-ka. marka ugu horeysa intaadan bilaabin ka hor inay kaa go'an tahay adiga wixii aysan kaa ahayn kaliya waan bilaawaya, maanta ayaad bilaabaysaa, berrina joojinaysaa. marka wixii hadday kaa go'an yihiin oo adiga ay kaa soo go'day, waxaa fududaanayso markaasi hadafkaasi inaad xaqiijiso oo aad noqotid professional video editor. marka iyadoo saas ay tahay oo meel walba koorsooyinka ay yaalaan, dad badan ayay ku adag tahay inay xaqiijiyaan hadafkooda. dhankan video editing-ka marka la soo aado waxaa jirto software la isticmaalo sida software-ka lagu magacaabo CapCut, waxaa kaloo la isticmaalaa Premiere Pro, Final Cut Pro, DaVinci Resolve. Premiere Pro waa advanced, CapCut-kana waa beginner friendly. haddii aad bilaawaysid video editing-ka ay tahay markii kugu horeysay, aniga waxaan kugula talinayaa inaad ka bilowdo CapCut-ka. marka CapCut-ka wuxuu leeyahay qayb pro ah oo wax waliba aad ka heli kartid, si fudud aad wax waliba ku qabsanaysaa. haddii aad iibsatid wax waliba uu ku siinayaa oo halkaas aad wax waliba ka helaysaa. Premiere Pro-gana waa advanced, marka howlo badan ayaa lagu qabtaa sida hadda filimaanta dadka turjumaan, sida filimaanta dadka hagaajiyaan, waxyaabahaas oo idil howlo badan ayaa lagu qabtaa. marka haddii Premiere Pro-gan aad baratid wayba kasii fiican tahay oo waxay kuu fududaanayso inaad soo saartid muuqaalo aad iyo aad u qurux badan oo soo jiidasho leh. software-ada aan kusoo sheegay dhammaantood qasab kuguma ahan inaad baratid dhammaantood, balse hal xabo aad baratid ayaa kaaga filan oo midkaasi aad naftaada dul dhigto. wax markaad baranaysid waa inaad nafta dul dhigtaa. marka halka software oo nafta aad dul dhigtay ayaa kaaga filan software-ada kale oo kuma qasbanid inaad dhammaantood baratid. mid ka mid aad baranaysaa, midkaasi markaad baratid kadib midkaas ayaad ku shaqo tagaysaa. barashada markaad kusoo gudubto waxaa lagaaga baahan yahay inaad leedahay portfolio. portfolio waxa weeyaan waa shaqadaada ayaad tusaysaa dadkii oo waxaad iskugu keenaysaa muuqaalada aad diyaarisay ama waxyaabihii aad hagaajisay hal meel iskugu keenaysaa, kadib dadka ayaad la wadaagaysaa oo sidaas ayaa laga yaabaa in shaqo lagugu siiyo mase dadka ay kugu bartaan ninkaas hebel caadi ma ahan, wuxuu hagaajiyaa muuqaalo qurux badan. marka dadkii ay isku kaa sheegayaan, dadkeeda isku kaa sheegaan waxaa kuu fududaanaysa markaasi inaad heshid client. kadib portfolio markaad diyaarsatid waxaad xoogga saaraysaa markaasi inaad dadka gaarsiiso oo portfolio dadka aad tustid oo dadka aad la wadaagtid. company aad u tagaysaa, waxaad dhahaysaa waxaan hagaajiyay muuqaaladan ayaan diyaariyey, editing-kayga sidaan weeyaan. marka waxaa fududaanaysa markaasi haddii lagu qanco editkaaga ama waxyaabaha edit gareynaysa haddii lagu qanco, markaas waxaa fududaanayso in sidaas shaqo lagugu siiyo oo markaas company-gaasi sidaas ay shaqo kugu siiyaan oo aad la shaqaysid. waxaa kaloo samaynaysaa, waxaa soo qaadanaysaa dadka content creators, dadka muuqaalada duubaan ee muuqaaladooda balaha bulshada soo dhigan ayaa waxaa samaynaysaa muuqaaladooda ayaa soo qaadanaysaa, kadib waad edit gareynaysaa, waa jarjaraysaa muuqaaladoodii, waxaad abuuranaysaa accounts social media, TikTok, Instagram, Facebook. waxaad kusoo bandhigaysaa muuqaaladii aad hagaajisay. kadib markii muuqaalkii aad ka dhigtid mid perfect oo aan caadi ahayn oo muuqaalkii waqti aad gelisid, waxaad soo dhiganaysaa baraha bulshada. kadib muuqaalkaas hadduu qarxo oo dad badan ay daawadaan oo muuqaalkaasi views badan u helo, waxaad la wadaagaysaa qofkii muuqaalka lahaa. waxaad ku leedahay hebelow muuqaalkan ayaan soo dhigay, waad u diraysaa linkii aad u diraysaa muuqaalkan aan hagaajiyay aan sin u dhidgareeyay, kadibna waxaan soo dhigay barahiga bulshada wuuna qarxay. marka ka waran haddii aad ii dhiibato muuqaaladaada aan ku hagaajiyo iyo qaabka muuqaalada u hagaajisa, laga yaabaa inuu ka helo markaasi uu sidaas kugu siiyo muuqaaladii, sidaasna contract aad ku heshid. waxaa kaloo lagaaga baahan yahay mar waliba inaad ahaato qof update ah oo wax waliba la socdo, waxyaabaha cusub, teknolojiyada cusub qof la socdo oo mar waliba update ah. baryahan dambe waxaa aad loo isticmaalaa AI. marka AI si loo adeegsado haddii aad baratid waxa kuu fududaanaysa markaasi inaad soo saarto muuqaalo soo jiidasho leh. waxaa jiro AI loo isticmaalo caption-ka, muuqaalka ayaad u dhiibaysaa kadib wuxuu kuu hagaajinaya caption adigoo uusan waqti badan uusan kaa lumin. sidaas oo kale haddii aad update u tahay waxaa fududaanaysa markaasi shaqooyinkaaga inay kuu fududaadaan, markaasi aad noqoto qof lagu kalsoon yahay oo maanta shaqada loo dhiibo kasoo bixi kara. hagaajinta muuqaaladaada waa inaad u isticmaashaa transitionno qurux badan, sound effectyaal soo jiidasho leh. waxaa kaloo lagaaga baahan yahay inaad samaysid connections, inaad xiriir la samayso dadka editorada, creatorska. marka dhammaantood markaad connection samaysid oo dadka la xiriirtid ama qof cusub aad baratid, qof kale uu kuusii dhiibo, sidaas inaad ku hesho fursad
fursad shaqo oo markaas shaqo lagu soo bandhigo hebel oo shaqo lagu dhiibo lagu tijaabinayo markaas shaqadaas sideeda haddaad uga soo baxdo markaas waxaad noqonaysaa qof loo baahan yahay mar wali waa inaad samaysaa improvement muuqaalkii maanta hagaajisay waa inuu ka duwanaadaa muuqaalka beri hagaajin doontid mar walba marka sii dambayso muuqaalka waa inuu ka duwanaadaa muuqaaladii hore hadda yeelsan feedbacka dadka kaaga imaanaya clientigaaga maanta clientiga hadduu ku yiraahdo hebelow muuqaalka sidan kama rabin oo sidan ayaan ka rabay waa inaad u qaadataa si serious ah aadan fududaysan haddii aad fududaysatid waxaa markaas imaanayso markaasi in lagaa tashto oo qof cusub lagugu bedelo marnaba ha joojin waxbarashadaada maalin waliba oo inaad cilmiga wax ku kordhisa oo wax cusub aad baratid ama website cusub ha noqdo ama software cusub ha noqdo maalin kasii dambayso waa inaad cilmigaaga ziyaadisid haddii aad u malaynaysid video editing inuu yahay shaqo oo kaliya ma ahan shaqo ee waxa weeyaan waa skills dhisaya maskaxdaada iyo cilmigaaga haddaba haddii aad ku haminaysid inaad baratid video editingka waa inaad u barataa si kama dambays ah oo naftan aad dul dhigtaa talada ugu wanaagsan oo ku siinayaan midaas weeyaan ilaahi subxaana wa tacaala qur-aankiisuna wuxuu ku leeyahay anna sacyu sawfa yura marka haddii aad maanta dadaashid dadaalkaaga meel cidlo ah kuma dhici doono dadaalkaagana marnaba ha yaraysan inta muuqaal lamida ku kulmi doono waxaan ku leeyahay nabadgelyo haddii ay tahay markuu weeraysa muuqaalka ila kulanto waxaan ka codsanayaa inaad subscribe sarto si marilo muuqaaladan soo geliyo ay ku soo gaaraan peace